xanaad iyo aada ugu farxay shalay waan joogay madasha lagu qaybinayo xoolaha gelinkii hore 31 qoys oo fuqara ahaa ayaa markaan salaadii duhur tukanay waxay noqdeen dad maal leh waxaan leenahay waajib ilaahay idinku lahaabaa gudateen annagana culays baa naga dulqaadeen faralka iyo waajibkaas faa'iidadii ilaahay uu ku ogaa ayaa muujiseen jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum sida culimmadu ka warrantay sekadu waa ruknun min arkaani alislaam waa tiirarka islaamka ka mida rukni walibana macnuu u taagan yahay macnaha sekadu ay u taagan tahay waxa weeyaan in ay walaaloobaan fuqarada iyo dadka hantida leh oo heerka gaaladu gaadho ee laba dabaq la kala noqdo inaanay muslimiintu heerkaa gaadhin hadday dadku laba dabaqadood kala noqdaan cadaawad baa dhex gasha waxaa wada maqasheen taariikhdii faransiiska markii abaaruhu ka dhaceen ee dadkii fuqaradaha ay mudaharaadeen ay gurigii madaxtooyada ku dul mudaharaadeen ayaa naagtii madaxweynaha ayaa daaqadda ka soo egtay dadkii oo qaylinaya markaasay tihi dadkani maxay doonayaan markaasay yidhaahdeen roodhi bay waayeen marka iyadu dee duruufta meesha taalla nin dheragsanay nin gaajoonay waxba kama ogee waxay tihi hadday roodhi waayeen keegaba may cunaan heerkaasay gaadhay dareenka bini aadmigu inuu kala tago